بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال وبرنامج كيني لما قعبهاي هول مالميت كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفدقي شناد أن كقادة دقيني maalinta nebiga iyo howlaha uu qabsan jiray iyo waxa dhexdeeda dhacay waa barigii iyo qaabka waaga ugu bariyay ee soo tilmaamnay hadda subaxii ayaan ka warbixinaynaa iyo xaaladihii uu ku sugnaa xaalada kamida waagu markuu si fiican u iftiimo waa barigana la soo dhaafo jawiga oo dhan nuurkii uu iftiimiyo adduunyada sidaas la mid ah waqtiga nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wajiga nabiga ayaa iftiiminaya maxaa yeelay wajigiisu waji aad u qurux badan buu ahaa magaaladii Madiina waxa weeye wajigaasi ku soo toosi jireen iyo subaxaasi uu nabiga dhex jooga Abdullah ibn Salam baa tilmaamay oo yiri marka nabiga eegay wajigiisa waxaan ogaaday caraftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab inuu san ahayn wajigiisa waji beenaale inuu san ahayn ayaan xaqiiqsaday waji iftiimaya haybad ay ka muuqato ayuu ahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa dhici jirtay maalinka subaxa ah baadama adkaarta iyo waa barigii la soo dhaafay inuu mararka qaar kood mawcida iyo waano uu saxaabadiisa siiyo sidii xadiiska al-Irbaad ibn Sariya ku sugnaa nabiga ayaa inuu wacdiyay sallallahu alayhi wasallam maalin maalmaha kamida salaada subax kadib fajr waano aad u xeel dheer oo indhuhu ay la ilmeeyeen qalbiguna uu la walwalay oo la gilgishay la cabsaday markaas ninba wuxuu ku yiri ya rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxad moodaa waano sagootiisa inna sagootinayso naga dhiman rabto ama waxa weeye inaga tagi doonto dib dambe aan ku arkineen ee ina wacdi maxaa inoo dardaarmaysa famaada ta'hadu ilayna ya rasuulullah maxaad inoo dardaarmaysa wuxuu inagu yiri buu yiri waxaan idin dardaarmaya an dhageysana dardaaranka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alla ka cabsi taqwa allah السمع والطاعة اسمقل iyo kala dambeyn kala amar qaadasho oo waxa mujtamaca Soomaaliyeed laga waay in la kala amar qaato oo qofkii meel mas'uulka ama mas'uuliyadiisa lagu tixgeliyo lagu maamuuso lagu ixtiraamo dadka kalena ay awaamirtiisa ay fuliyaan maxaa yeelay wada jirku umada ayaa waa maxay hormar adduun iyo mid aakhiraba ku gaarayso waxa way diinku wada jirkaas u baahan adduunyadina wada jir buu u baahan idan as-sam'u wat-ta'a ismaqal isdhageysi kala dambeyn way وين عبد حبشي أدون حبشي أبا مسؤول هيدي النقطة قفك تقول نعبتين أما تسليدين وتقول لي ذي هاي هبا إيدين تلي إن تقدم بيسان بلدوني محايا لي قفك إيدين كإيدين كم يدوسين ولا هذا وحو أركي دونا خلاف بدن حدين ولا شو إيدين قصينتو دتكو إس خلافي بعد أركي دونا صحابة النول بخلاف قبل الوضع رضوان الله عليهم حتى الممنوع صلى الله عليه وسلم in loo kala tagi doono ama la isku khilaafi doono 73 group dhammaanna naarta ay galayaan hal group u badbaadayo isweydiiyo 72daasi ma ka badbaadnay halka group ay jannada galaya ma nahay ومن هنا ummadan way iskhilaafaysa shakina malaha iskhilaafkaasna waa shay waxa weeye koonkan waxa weeye sunan al-kawniyya kamida laakiin inaan ku dadaalno qolada badbaadaysa inaan noqono طيب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لما وإياكم محدثات الأمور إسكا إلالية وحيالها بدعوين كي قدال لقسو الدرية محايلة وباضي فإنها ضلالة قفكي أذنك إذن كمده أرنكاسي سوغارة إسخلافك إسبرامبرك إي بدعوينك إيو وحن لشيغيو الدين لقد إغانيو قفكي سوغارو قبصد السنة ذي سنة النبي قال له بدبادي عليه الصلاة والسلام دردارا كيسوكا وحد قبصتان بيري خلفاء راشدين تيد أفرت أيد أبو بكر إي عمر إي عثمان إي علي سنة ذي وضضو ذي قبصد محايا لإياغا أي أقوى وحويدتك هنونين إي قدم بيا قبصد أيويري أوليبا جوز دنبيتك كو قرينة عضوا عليها بالنواجد جوز دنبيتك كو قبصد أويسا إذن كفر بحسنين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وعدك النوع أنا مبذين جرين صبح والبوت جوكتها ما أهين محيا لحديث كلا وحوها كان يتخولنا بالموعظة ويعني وعدك وإنو كلا فقفقين جري وحوغها بودح دحيسين جري وجيددنا وامحي خشية السآمة علينا إن كدان لدرادت قفكو هدين لغبض إيمانو بالدرسي وموعدة جوكتا ودالية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحسامين جري إني أحي صولان حماس إيا أماتيد أي أهلان ساسو وعدين جري وحديع جرتي مررك قركو النبي صلى الله عليه وسلم صبحاسي إن محالي رهدا أي قصو حريريه سيسو فريستان ومركاسي أحواشا أي كسو جيهين iyo xaaladahooda iyo inuu weydiiyo inuu bariidiyo inuu la socdo mujtamaca waxa ku soo kordhay wuxuu oran jiray war cid xanuunsan ma jirtaa oo aan booqdo waciyadatul mariidkii
marka hadday yiraahdaan maya wuxuu oran jiray janaaza ma jirta cid naga geeriyootay oo aan raacno oo aan soo duugno miyaa jirto wahaakada axwaashi ummadiisa ayuu mid u ogaan jiray walidaalika waxaa dhici jirtay mararka qaarkood inuu weydiiyey saxaabadiisa yaa jooga yaa maqan yaa indhihiisa qaban waaye yaa indhihiisa ay qabanaya inuu kala ogaado sida qaa'idka lagu yaqaano waa hogaamiyuhu waxa lagu yaqaanaa dadka uu hogaaminaya inuu la socdo qof walba iyo kaalintuu ku jirayna inuu garanayo kii kaalintiisa ka maqan inuu tabo kii maxaa la yidhaha hawshiisa haysto inuu ku ammaano taa ayaa lagu yaqaanaa qaa'idku nebi maxamed sal slam qaa'id midka ugu sharafta badan ayuu ahaa wuxuu weydiiyey subaxyadii uu noloshiisa ka mid ahayd subax ka mid ayuu wuxuu weydiiyey haweeney masjidka xaaqi jirtay oo nadiifin jirtay oo madoobeyd wuxuu yidhi aawo heblo waxay yidhahdeen way dhimatay way la fududaatay wuxuu ku yidhi nabi sal slam afala kuntum aadantumuuni maxaad ii soo ogeysiin weyseen waxaad moodaa saxaabigu wuxuu leeyahay inay arinkeedii yaraysteen oo fududaysteen oo yacni qof yacni wasan iyo mujtamac wax magac weyn ku dhexla ma ahayno waxaa weeye way iska fududaysteen waxay ku yidhahdeen yaa rasuul allah sal slam habeennimay go'day oo dhimatay isla markaa waan aasnay oo waxaan necbaysanay oo dhibsannay inaan hurdada kaa kicinno dee qof weynna ma ahayn saasay ka dhigan tahay yacni nabi sal slam wuxuu ku yidhi dulluunii calaa qabriha qabrigeeda itusiya markaasuu qabrigeedii tegey waana ku tukaday waana u duceeyey يعني yaraysi ma laha qofka mujtamaca waxa uu ahay walidaalika qof kastoo hogaamiye ahay mujtamaciisa inuu sidaa ku noqdaa la doonaya inuu ka warqabo inuu ogaado cidda joogtay cidda maxaa la yidhaha aan joogin haweenaas masaajidkay xaaqi jirtay nabiga sal slam qalbigiisu meel weyn ayay uga taalay wuuna ku tixgelinaya hawsha ay mujtamaca iyo bulshada ay u hayso maalin maalmaha ka mid ah wuxuu waayey nabiga sal slam thaabit ibni qays ibni shamaas radia allahu canhu ayuu waayey wuxuu yidhi maxaa dhacay thaabit oonan u arkaynin miyuu xanuunsanaya sacad ibni mucaad oo saxaabi jaliil ah oo ansaari ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah sal slam waa dariskayga thaabit isla markaa wax xanuuna kuma ogi ee bal waan u tegi isagii baa u tegey wuxuu arkay isagoo gurigiisa ku jiro oo waxaa weeye irdaha soo xirtay oynaya oo barooranaya wuxuu ku yidhi thaabitoo maxaa kugu dhacay oo ku helay markaasuu yidhi thaabit ku jawaabay shar baa igu soo degtay balaa i asiibtay ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun oo macnaheedu uu yahay kuwa iimaanka laga helayo sawdkiina saraxa uga qaadina sawdka nebiga sal slam meel ka sarraysa codka nebiga codkaaga inuu ka hooseeyaa la doonaya hana waxa weye codka kor ha ugu qaadinina nebiga sal slam sida barkiin barka kale uu ugu yeero war hebelow aad u tiraahdaan saasoo kale nebiga sal slam ha ugu yeerina maxaa yeelay inuu camalkiina buro ayaa laga yaaba adinku inaan garanaynin ayadaasaa soo degtay buu yidhi aniguna waxaan ahay nin aada u coddheer baan ahay waxaan ka cabsaday camalkayga inuu buro oo marka aan ka mid noqdo ahlu naarka inaan ka mid noqdo nebiga sal slam wuxuu ku yidhi intuu u yeeray lasta minhum kuwa ahlu naarka oo camalkooda buray kuma jirtid bal taciishu bikhayr watamuutu bikhayr anta min ahli ljanna khayr baad ku noolaan oo waxaa weeye khayr baad ku dhiman oo ahlu jannaad ka mid tahay allahu akbar thaabit ibni qays ibni shamaas ninka saxaabiga jaliilka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tabay jalsadiisii iyo booskii iyo buu ka tabay wahaakada inaguna saasaa la doonaya dadka nagu hareeraysan ee aan la shaqayno ama aan madaxda u nahay ama danaha inagala dhexeeyaan sidaas si la mida inaan u tabno oo ummaddu ay sidaa isugu xirnaato ayaa la doonaya wahaakada nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha subaxyada qaarkood waxaa dhici jirtay inuu weydiiyo maxaa la yidhaahdaa xataa ru'yooyinka ay arkeen oo uu yidhahda man ra'aa minkum ru'yan qofkii ru'yo iyo riyahayo ha iga qisooda waan u fasiraya oo waxaa weeye waan u sheegaya waan uga waxaa weeye fasirkeeda iyo macnaha la saari karaan u sheegaya walidaalika cabdillaahi bni salaam radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ahaa ee caalimka yahuudeed ahaan jiray ee soo islaamay ayaa maalmaha ka mid a wuxuu yidhi ra'aytu ru'yaan arkay waqtigii nebiga sal slam markaasa ru'yadu waxay ahayd waxaan arkay buu yidhi sidii beer aada u waasic ahoo cagaar iyo dooggeeda aad la yaabaysid anigoo dhex jooga beertaasna tiir ka samaysan bir inuu ku dhex yaallo dhulkana hoos ugu jira tiirka samadana waxaa weye dherarkiisa uu gaarayo meesha ugu sarrayso oo fiiqa ahna inuu xarig ka lusho curwa inay ka lulato markaasa waxaa liigu yidhi kor oo waa maxay fuul
waxaan iri ma karo kadibna waxa weeye khaadim baa isaacidayo waxa weeye waan koray ilaa meesha u sareysa markaan marayo baan xarigi qabtay waxa ligu yiri istamsik xarigan si fiican ugu dhago qabso indhaha baan kala qaaday anigoo xarigi gacanta ku haysto riyadaasaan ku riyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam baan uga qisooday wuxuu iigu fasiray buu yidhi taasi waa beerta aad aragtay waa beertii islaamka tilka rawda alislaam islaamkii wey beertaad arkaysa waa cagaarka badnayd islaamkii wey tiirkii ka dhex taagnaana waa tiirkii islaamka uu ku taagnaa xarigii aad aragtay oo lagu yidhi ku dhegna waa islaamnimadii adigana waad qabsatayo فأنت تموت على الإسلام إسلام لما تكون لمن يسعى عبد الله بن السلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحي أهيد متكمدة علامات نبوته بكمد أحيد محايل عبد الله بن السلام وصينه على النبي قداشيسا إلى دور صدن صنع كدب حروب الردة iyo fitan badan iyo dad badan oo diinta ka laabta iyo la caasiray isaguna weligii waa maxay ma gilgilan ma hashkadaynin bal islaamnimada iyo tiirkaasi ayuu ku dhaganaa Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu wa ardah ولهذا marar badan saasay ahaayeeno yaa iiga qisoonaya ayuu oran jiray ru'yadu arkay uu bariidin jiray uu ka warqaadi jiray xaaladii ku sugnaa ilaa waxa ay ku riyoodeen uu weydiiyo oo uu markaasi macno iyo fasir uu u saaro yani wuxuu ahaa subax la kala warqaato oo lisbariidiyo oo waxa weeye axwaasha umadiisa uu la socdo ilaa xaaladaha xataa daakhiliyan iyo wixii ay ku riyoodeen uu weydiiyo riyooyinkii loo wariyay waxaa ka mid ahaa nin saxaabadiisa ka mid ah wuxuu ku yidhi waxaan arkay rasuul allah وسلم ضرور ay ka tifqayso ama ka dhibcayso malab iyo subag dadkuna ay gacmaha hoorsanayaan oo u dhiganayaan qaarna wax badan bay qaateen qaarna wax yar bay qaateen kadib waxaan arkay buu yiri xarig ilaa samada iyo arlada waa maxay xiriirsan adiga ayaa qabsaday waad saro noqotay oo kor baa lagu qaaday waxa weeye nin kale ka dambeeyo qabsaday isna saro baa loo qaaday nin kale ku xigay isna sidoo kale u noqday nin afaraad baa ku xigay uu ka go'ay xarigi kadibna waa loo xiriiriyay oo loo talay isna saro ayuu noqday Abu Bakar baa majliskii fadhiyay markaas wuxuu yiri yaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam tan aniga iida ana fasiray ana kala tuurahayo markaas nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hay fasir oo wakuka Abu Bakar wuxuu yiri daruurtii aad aragtay waa islaamkii waxaan ka tifqayay malabka iyo subaga ahna waxa weeye waa macaanka iyo jilaaci quraanka weey dabacsanaanta iyo liinka iyo macaanka quraanka weey waxaan ay dadku ay hoorsanayaan oo midna wax badan u helay midna wax yar u helayna waa quraanka iyo ninna waxa weeye ilaahay wax badan buu ka siiyay midna waa lagu yareeyay quraanka waa lagu yareeyay xariga samada iyo arlada u dhaxeeyana waa xaqa aad ku sugan tahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabiga uu ku sugnaa way waad qabsatay waxa weeye waad ku sara noqotay ilaahay baa sara kuugu qaaday nin kale kaaga dambeeyay sidoo kale ku sara noqday nin kale kaaga dambeeyay waxa kada markaas wuxuu yiri yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ma asiibay masawaan gafay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri qaarna waad asiibtay qaarna waad gaftay markaas uu yiri Abu Bakar ilaahay baan ku dhaartay waad ii sheegaysaa waxaan asiibay waxaan khalday nabigu wuxuu ku yiri hadaaran Abu Bakar waakada saxaabadu ridwaanullaahi calayhim saasay ahaayeeno حتى riyadooda iyo habeenkooda iyo soo jeedkooda iyo xaaladooda wixii dhacay oo dhan nabiga warkoo isdhaafsan jireen axwaasha umadiisana wala socon jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mararka qaarkood haday wax uga qisoon waayeen isaga ayaa qisooyin uu arkay riyooyin arkay u sheegi jiray una fasiri jiray waxa kamid ahayd xadiiskii dheeraa ee tilmaamayay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam habeenkii laba nin inay u timid garbaha ay qabteen ay dhaheen inطلق soo dhaqaaq oo ardal muqaddasa ay geeyeen buur dheer ay dhaheen fuul waxa uu yiri ma kori karo annaga ku fududeynayno kadib markuu sare uu buurta ay koreenna uu arkay dad la cadaabayo oo xaalado kala gudsan lagu cadaabayo kadibna ay uga khabreen oo ay u fasireen ومن هنا nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam jalsooyinkiisa iyo waagiisa iyo nolol maalmeedkiisu inuu ummadda bariidiyo xaalkooda la socdo ka warqaado kooda xanuunsan uu booqdo kooda geeriyooda uu maxaa la yiraahdaa uu ka qayb qaato duugidiisa kooda maxaa la yiraahdaa humuum iyo wax ka dhex guuxayo daakhili ah qaba uu ka neefiyo sida ayuu ahaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam inagu waxa inagu haboon in xaaladeenuna ay sidaa noqoto dad isku xiran isbariidiya iswarsada maalintooda ay ku dhisan tahay maalin iskaashi iyo gacmaha in la isqabsado ayay ku fiican tahay sida nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ba ay
saxaabadiisu ay ahaayeen kii maqnaa xataa waa tabi jiray inagu keena maqan inaan tabno keena joogay hawl inoo haya inaan hawshiisa ku tixgelino wahaakada taa ayaa nafteedii iyo tiinaba وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال وبرنامج كني لما قعب هاي هول مالميت كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفدقي شناد أن كقادة دقيني maalinta nabiga iyo howlaha uu qabsan jiray iyo waxa dhexdeeda dhacay waa barigii iyo qaabka waaga ugu bariyay ee soo tilmaamnay hadda subaxii ayaan ka warbixinaynaa iyo xaaladihii uu ku sugnaa